halkaan nagala socotaan waa telefishinka qaranka Soomaaliland ee magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka guud ahaan shacabka magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka ayaa caawa u dhagtaagayay natiijada hordhaca ee ka soo bixi doonta komishanka doorashooyinka qaranka ee magaalada Gabiley taasi oo muddo 5 cisho ilaa haatan shacabka u dhagtaagayaan natiijada ka soo bixi doonta iyadoo caawa shacabka reer Gabiley ay filayeen inay soo baxdo natiijada kama dambaysta ah ee komishanku ka soo saarayaan xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Gabiley ee doorashadii dhammaan ka qabsoontay dalka Soomaaliland waxa haatan xafiiska guud ee komishanka qaranka ku wada jira saddex xisbi qaran ee kulmiye wadan iyo wixii kale waxa muuqateen caawa aan gabi ahaanba lagu dhawaaqi doonin hordhaca natiijada doorashada ee golaha deegaanka ee magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka sidoo kale waxaan wareysanay qaar ka mid ah shacabka magaalada Gabiley ee u dhagtaagayay ku dhawaaqida natiijada doorashada ee caawa loo balansanaa inay ka dhacdo magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka daawadeen wax nagala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliland hadda waxaan hortaaganahay xarunta komishanka qaranka ee magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka saacadu abaar waa 12 ilaa haatan waxa shacabka reer Gabiley ay sugayaan natiijada ka soo bixi doonta komishanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa garbigeyga taagan mid ka mid ah dhalinyarada magaalada barnaamijinta laga wad ka qabtaa in caawa doorasho lagu dhawaaqo bismillaahir rahmaanir rahiim kulli sida ay bulshooyinka reer Gabiley wada sugayso shantii cisho u dambeysay bay u dhagtaagaysay waxaan rajaynaynaa in komishanka doorashooyinka qaranku waaxdiisa Gabiley ay naga soo gabagabayn doonto oo ugu dambeyn caawa ay nagu dhawaaqi doonto insha Allah way jiraan culeysyo sida ay sheegayeen qaar ka mid ah xisbiyada qaranku sida inay kombiyuutaradu mararka qaar keenayaan cilad laakiin waxaan rajayn doonaa sida goboladii kale ay dhacday in laga soo gabagabayn doono haddii la hadaado sida ugu fudud magacaygu waa Guuleed runtii caawa waxaan ka qabnaa rajo weyn shantii galabnimo ilaa imka waxaan u joognaa halkan in lagu dhawaaqo imka 12 habeenimo tahay waxaan u joognaa in lagu dhawaaqo waxa weeye natiijada hordhaca ah ee komishanka qaranka gobolka Gabiley runtii goboladii kale waa lagu dhawaaqay laakiin wali xilliga lagu dhawaaqin marka komishanka qaranka khaasatan waaxda Gabiley waxaan rajaynaynaa in caawa naga gabagabayso caawa halkan waxaan u taaganahay inaanu ogaano natiijadii golaha deegaanka ee degmada Gabiley oo muddo imka dhowr cisho aynu sugaynay insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in caawa noqon doonto habeenka dambeeyay lagu dhawaaqay sida gobolada kale oo kale hadda waxa arsan labada degmo doorashada Gabiley iyo caasimadda oo rajaynayna marka lagu dhawaaqay in lagu dhawaaqo doono insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa guul iyo inay si nabada oo waxa weeyaan khayr inoogu soo dhamaato sida quruxda badneed ee doorashada inoogu dhacday ay natiijada inoogu soo gabagabeen insha Allah ta'ala sidoo kale waxa garabkayga taagan Muxyidiin oo kamid ah xubnihii hore komishanka Soomaaliland halka waran xogaye komishankan magaalada Gabiley xilligan ka qabsoomaya oo muddo 5 cisho ilaa haatan lagu dhawaaqay natiijada gobolka maxay kula tahay inaan ilaa xilligan lagu dhawaaqin gobolka Gabiley doorashooyinkii ka dhacay ee ilaa imika aan ognahay garan maayo waxa laga cabsoonayo tirinta iyo hawsha dhamaanteed way dhamaatay baa leeyahay Gabileyna wuxuu baratay annagu maalintii aanu soo hoynay sanaaduuqda maalintii labaad baan ku dhawaaqnay doorashooyinkaas oo ahaa doorashadii ugu adkayd oo ay ku tartamayeen 7 xisbi iyo 21 gole deegaan baa ku tartamay 147 xildhibaan baa tartamayay maantana 930 qof bay ilaa imika la kala saari kari leeyahay oo waxaan dhacaynin haddaba dhibaatadu ama sartu halkay ka quransan tahay ilaa imika ma garan karaano waxaanan ku ambalayn madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hadda qabtay doorasho aan hore uga dhicin Soomaaliland oo ah laba doorasho isku sidkan tani way keeni kartaa wixii warara ee ka soo kordha natiijada hordhaca ah ee golaha deegaanka degmada Gabiley kala socod telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa Yalla Xaaji iyo Saay Maxamed Daahir telefishinka qaranka Gabiley